Kulan ciyaareedka ka tirsan horyaalka kubadda gacanta ee gabdhaha Soomaaliyeed ayaa maanta waxay isku wajihi doonaan kooxaha markaasi lagu kala magacaabo kooxda Madbacadda iyo sidoo kale kooxda Muqdisho City Club ayaa maanta markaasi ku wada ballansan garoonka Wish Stadium degmada Cabdicasiis. Ciyaartan ayaa markaa waxay ka mid tahay horyaalka kubadda gacanta. Labada kooxood ayaa markaasi soo ciyaaray kulamadooda kala duwan iyagoo guuldarooyin kala soo kulmay naadiyada ay la soo ciyaareen. Haddii aan ku hormarno kooxda kubadda gacanta ee Madbacadda ayaa kulankoodii ugu horeeyay waxa ay ka hortageen gabdhaha kooxda kubadda gacanta ee Horseed taasoo ay kasoo adkaatay waxaana sidaasi guuldaro ku soo qaadatay. Sidoo kale dhigeeda labaad ayay waxay la ciyaartay naadiga Hagan sidoo kalena waxa ay kala soo kulantay guuldaro halka kooxda Muqdisho City Club iyadana ay soo ciyaartay hal kulan oo kaliya. Horseed ayayna la ciyaartay waxayna ka mid ahayd kulamada horyaalka waana laga soo adkaaday waxaana baaqi u ah ciyaar u dhaxaysay Hagan iyo sidoo kale kooxda Muqdisho City Club. ciyaartaas oo roob baajiyay ayaa la filayaa in dhawaan iyadana la ciyaaro. Hal guuldaro ayayna wadataa kulankeedii labaad ayay markaasi ciyaari doontaa haddii galabta ay ka hortagto dhigooda kooxda Madbacadda. Labada kooxood ayaa dardar xoogan ee ciyaarta kusoo bilaaban doona maadaama koox walba ay doonayso in sanadkan ay guul ka gaarto dhigeeda labada koox Madbacadda iyo sidoo kale kooxda Muqdisho City Club oo sanadkan wacdaro kasoo dhigay. Haddii aan eegno kooxda Muqdisho City kulan ciyaareedkii ay la ciyaareen gabdhaha Horseed waxay soo bandhigeen ciyaar aad loo jecleystay oo ay markii weerarka iyo sidoo kale qaab ciyaareedka ay u ciyaarayeen ayaa ah kuwa aad markaasi isku soo diyaariyay. galabta ayaa waxay markaasi muujin doonaan dadaalkooda ku aadan sidii ay u xaqiijin lahaayeen inay ka miradhaliyaan guusha galabta ay rajeynayaan. Sidoo kale kooxda Madbacadda ayaa iyadana markaa doonaysa in ay dhigeeda MCC ay iska saarto meel si ay guul ugu gaarto ciyaareedkan iyagoona horyaalka lagu loolamayo kaalmaha hore ee sanadkan waxaana ka harsan hal kulan oo kaliya. Wajiga koowaad waxaana la ciyaari doonaa maalinta Berita waxaana iswajihi doona gabdhaha Hagan iyo sidoo kale gabdhaha Horseed. kulanka waa kulan aad markaasi u weyn oo wajiga koowaad ayaa maalinta Berita la soo gabagabeyn doonaa xil ciyaareedkan oo aad u xiiso badan. isla sidoo kale todobaadka dambe ayaa waxaa loo diyaar garoobi doonaa is-aragga labaad ama wajiga labaad ee horyaalka kubadda gacanta ee dalkeena Soomaaliya iyadoona kooxda Horseed ay markaasi tahay kooxda difaacanaysa horyaalkan iyadoona doonaysa in isbedel weyn ay ka gaarto xil ciyaareedkan oo ay markaasi soo bandhigaan guulo waaweyn. halka kale kooxda Hagan iyadoona ay ka muuqato diyaar garow xoogan ayaa waxa ay markaasi galabta markii kulankan dhamaado ay fiirin doonto natiijada ciyaarta kasoo bixi doonto iyadoona kulanka Jimcaha haddii ay Horseed ay ka badiso ay markaasi isku dhibcan noqon doonaan waxaana u hari doona wajiga is-aragga labaad ee horyaalka dalkeena Soomaaliya ee kubadda gacanta.